حين أنا وحلا إدها أنس عبد الرحمن فارح ما داوام هاي هو يردبنا وحان ربا إذا عدنا كهلا قبل بيدي تنشر أو أيضا أي هاي بالقب صدي إن دكسي ودقي وقب صدي معلنا قبل شدي وقب صدي وكف صدي بيقول لي مطي صاصو إتهاي أيضا عافم أيضا حنوصل أو لقب صدي والإستيشن كسيمري أيضا هلا يسوق وبيجي بنسيمري إسبيتال بقرا عافمات بنسيمري intaas buu hadlaysay afkeedii ku hadlaysay isbitaalka 5 saac oo duhurnimo iigu go'day saas oo tay talaagad baa la gashay talaagadii 3 bari baa iigu jiday markaas haddana waxaa dhacday in aniga 4 saac guriga intii la keenay 3 saac oo subaxnimo wiilka gabadh falkaas sameeyay walaalkiis oo 18 jir inuu dhabarka dhagax iiga dhiftay saas oo tahayna xaamil aan hay sagaalkeedii waa go'ay dhiig iyo biyo iga furteen saacada aan golo kasto caafimaad aan la xiriiro maadaama ninkii aan ku ogaa inuu ii xirnaa oo dawladda ay cadeen ii soo goystay kiisku ninku waa ku cadyahay gabadha haan la aaso wax kiiskayga gabadhu ii cadyahay ma jidho wax ii ogna ma jidho shalay baa waxaa la leeyahay ninkii baa la soo daayay kitaab baa la mariyay madaxweynaha waxaan ka codsanayaa oo dadka islaamka waxaan ka codsanayaa shariicada islaamka ninka in la igula tiigsado hooyo maadaama dhibanaanahay amnigayga ma sugna meel aan joogo ma jidho saacada gurigii ilmihii wax waa ii baran laayihiin meel waa ii aabi laayihiin waa soo adeegan la'ahay qof xaamilaa baanahay maalin walba nabar baa la igula soo hariilayaa maadaama mu'adin wadanka u dhashaanahay waxaan rabaa madaxweynaha iyo dadka islaamka dal iyo dibad jiro in arrintaa wax la iga qabto arrintan goormay dhacday wiilka gabadhaada 10 sano jira qabsaday waxay dhacday bisha 20 iyo bisha 20keeda gabadha 20 bari hadda gabadha iga mootanta waata arrinta yaa ku jira oo galay markaa arrinta waxa ku jira dawladda gashay wax kasta galay gabadha aaskeedu way ogaayeen iyaga cadeyn siiyay wax war hadda ma hayo dawladdu wax waa ka soo bixi waayeen sababtoo tahay shariicada islaamka shalay la isla aadaa la yiri waxaan rabaa madaxweynaha iyo dadka islaamka uma la bandhigaya ninka sharciga islaamka gabadhayda maadaama uu diray oo qabsaday saacadaasna ay dhimatay anna aan dilnahay sharciga islaamka ninka in la ii mariyo oo xabsiga la leeyahay waa laga bixinayaa waa la dhoofinaya inaan la iiga bixin oo iigu jiro wiilka inuu gabadha qabsaday 10 sano jirtay yaa ku cadeeyay waxa ii cadeeyay ardaydii baa cadeysay ayadii baa afkeeda ku cadeysay asagii baa la wareystay oo odagii aabaha dhalay gabadha u tagay gabadhayda maxaad ku dhufatay biyo shalay casarkii aan kuu soo diray iyadoo caafimaad qabto